kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qisada tan waxay ka hadlaysaa eedada xun ee sida foosha xun leh oo la dhaqanta dhalaanka yarka ah eedada u tahay iyo sidoo kale cuqubada ka dhalan karta agoonka oo la dhibaateeyo ay qisada tan ka hadli doontaa haddaba qisada waxay ku bilaabanaysaa Axmed waxa uu ahaa wiil aad iyo aad u wanaagsan Axmed hooyadii waxa ay geeriyootay isagoo aad iyo aad u da'yar inta aysan geeriyoon waxa ay aad iyo aad ula dardaarantay Axmed aabihii oo waxay ku tiri wiilkan yarka ah ii daryeel oo yuusan dareemin inuu yahay hooyo la'aan waa ay geeriyootay Axmed aabihii yaa had iyo jeer wuxuu xasuusnaa dardaaranka wiilkiisana waxa uu siin jiray farxad aad iyo aad u fara badan hase yeeshee markii Axmed sanad uu gaaray iyo Axmed aabihii waxa uu go'aansaday in uu guursado si uu u helo ruux u daryeela dhalaankan yarka ah ee u tarbiyeeyay markii uu guursaday Axmed eedadii maalmihii koowaad iyo sanadkii koowaadba si wanaagsan ay Axmed ula dhaqmi jirtay hase yeeshee waxay wax waliba isbedeleen sanad kadib markii ay dhashay wiil eedadii waxa ay bilowday in wax waliba iyo jacaylkii waalidnimo iyo daryeelkii Axmed uu lahaa ee uu xaq u lahaa eedadii uu ku lahaa inuu ka waayo wax walibana waxay ku soo koobtay wiilkeedan yarka ah Axmed arinka wuu ka cuqdadoobay hase yeeshee Axmed yaa ahaa wiil wanaagsan oo muxuu ahaa wuu iska samray Axmed hase yeeshee waxay wax waliba haddana muxuu ahaa isbedeleen Axmed aabihii markii uu xanuunsaday ee uu gaaray noloshiisii saacadihii ugu dambeeyay isagana wuxuu aad ula dardaarmay eedadii markaas wuxuu ku yiri wiilkan yarka ah ee hooyadii waayay haddana daqiiqada kadib weynay aabihii wiilkan iyo daryeel oo labada wiilashayda waa wiilal isku mid oo walaalo ah hantida iyo maalka aan kaaga tagana labadoodaba ku daryeel wiilkan yuusan dareemin inuu yahay aabba la'aan iyo hooyo la'aan aabihii waa uu geeriyooday hase yeeshee maxaa dhacay Axmed eedadii waxa ay noqotay eedo aan arxan lahayn eedo aan naxariisan eedo aan ka fakirin aakhiro eedo ku tumata wiilkan yarka xuquuqdiis mar waliba waxay bilowday inay wiilka aad iyo aad u canaanato in hadallo aad iyo aad u kulul ay kula hadasho xitaa mararka qaar waxaa dhici jirtay marka ay dibadda wax kaga baahato wiilkeeda maysan u diri jirin Axmed oo hurdada laga toosan jiray Axmed wuxuu dareemay nolol dhibaato badan markaas wuxuu ku yiri eedo oo miyaadan ogeyn in aabahay uu kula dardaarmay markaas aad intay u sii carartay waxay ku tiri oo aniga sida igu oranaysaa habeen barkii ay waxay ka soo saartay hooyigii ay ka soo saartay ayadoo qabow daran uu jiro oo muxuu ahaa roob uu da'ayo ay Axmed soo saartay Axmed oo ilmeynaya Axmed aan garanayna halka uu qaban lahaa yaa waxa la kulmay imaamkii masjidka oo xilliga salaada u soconay markaas wiilkaygiyo maxaa ku helo saacadan ku soo saaray markaas uu kaga sheekay wuxuu adeer waxa ay soo saaray muxuu ahaa eedaday oo halka aan kula noolaa taariikhdiisa ayuu kaga sheekeeyay markaas imaamkii masjidka waxa uu Axmed u kaxeeyay hooyigiisa haddaba dhageystaha qaaliga ah halka haynoo joogto qaybtii koowaad ee barnaamijkii aan kaga hadlaynay eedada xun waxaan qaybta kale ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo aadan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh